السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta soo qaadan macluumaad kooban oo cuntooyin kala gedisan ku saabsan oo aan soo aruuriyay. Waxaa jirta farmaajo ama cheese la dhaho Kazumazu oo laga cuno jasiiradda Sardinia ee Talyaaniga. Farmaajadan ayaa waxaa ku dhex jirta dixri nool. Haddii uu dixrigu baktiyay macnaheedu waxa weeye inaan la cuni karin. Laakiin haddii uu dixrigu nool yahay ayaa waxa ay ku leeyihiin waa farmaajo fiican. Farmaajadan ayaa waxaa loo ogolaadaa inuu duqsigu ukuntiisa ku dhalo. Ukuntaas ayaa waxa ay isu beddelaysaa dixri. Dixrigaas ayaa waxa uu ku dhex noolaanayaa farmaajada oo qaybteedna dheebshiidaya oo ka dhigaya wax jilicsan. Markaas kadib ayaa la cunayaa iyadoo dixriyo kumanaan gaaraya oo nooli ku dhex jiraan farmaajadaas. Cuntooyin badan oo ay dadka qaybtood cunaan ayaa waxaa ku dhex jirta sun. Cunooyinkaas waxaa ka mid ah qayb ka mid ah miraha iyo khudaarta iyo faasuliyada ama digirta noocyo ka mid ah. Tusaale ahaan digirta nooc ka mid ah oo la dhaho kidney beans intaan la karin ka hor waxaa ku jira maaddo la dhaho hemagglutinin oo jirka dhib u geysan karta. Maadaama ay keento shuban iyo matag, dadkana waxaa looga digaa inay cunaan digirtan intaan la karin ka hor. Laakiin markii dabka la saaro oo ay muddo fiican saarnaato kulka dabka ayaa waxa uu suntaasi baabi'iyaa markaas oo uu qofku si caadi ah u cuni karo. Waxaa kaloo sidaas oo kale ah tufaaxa oo miraha yaryar ee ku dhex jira ay leeyihiin sun la dhaho hydrogen cyanide. Suntan oo loo adeegsado xataa in dadka lagu kharijiyo ayaa waxa ay ku dhex jiraan miraha gudaha tufaaxa. Waana waxa keenay in laga digo in miraha tufaaxa ku dhex jira aan la cunin ee la iska tufo. Inkastoo hal mir ama laba mir aysan dhibaato weyn aysan geysanayn oo qiyaas ahaan la yiri qofku markuu 100 miro iyo wax ka badan uu cuno ayay khatar u geysan kartaa naftiisa. Waxa isaguna jira kalluun la dhaho pufferfish oo sun aad khatar u ah leh. Sidaas oo ay tahay waddanka Japan ayaa aad looga cunaa kalluunkan. Dawladda ayaa aad u kaantaroosha si loo diyaariyo iyada oo dad gaar ah shahaado lagu siiyo diyaarinta kalluunkan. Sunta kalluunkan oo xubnihiisa qayb ka mid ah ay ku jirto sida beerkiisa oo kale ayaa waxa ay mamnuuc tahay in la cuno xubnahaas. Isagoo aan si fiican loo diyaarin haddii la cuno ayaa waxa ay keentaa in neefsashadu qofku ka adkaato oo uu sidaasi ku dhiman karo. Bisbaaska sababta uu kulaylka u leeyahay ayaa waxa ay tahay inay ku dhex jirto maaddo la dhaho capsaicin. Maaddadaas oo markii neerfuhu ka war helaan maskaxda u gudbinaya in dab meesha qabsaday. Markaas oo ay maskaxdu u fasirto in meesha uu holac ama dabi qabsaday oo xanuun digniina uu qofku halkaasi ka dareemo. Sidaas ayay khudaartani isu difaacdaa maadaama aysan rabin in mirihii ay ku soo tabcantay aadan cunin. Waana waxa keenay in qaybta cad ee u dhow miraha ay yihiin meesha ugu kulul bisbaaska. Sharikaadka qaybtooda ee cunooyinka sameeya ayaa waxa ay cunooyinkaas ku daraan maadooyin aad mararka qaarkood ka yaabaysid. Tusaale ahaan kalarada qaybtood ee lagu daro nacnacyada ama cuntooyinka kale ayaa waxaa laga sameeyaa cayayaanka qaybtood. Maado iyaduna lagu daro burka roodhiga qayb ka mid ah ayaa waxaa la dhahaa L-cysteine oo laga sameeyo baalasha shimbiraha noocyo ka mid ah. Maadadaas ayaa waxaa kaloo laga helaa timaha dadka. Ka jabta bilowgii qarnigii 19aad ayaa waxaa loo adeegsan jiray dawo ahaan iyada oo ay dhakhaatiirtu siin jireen dadka shubanku ku dhaco si uu shubanku uga istaago. Intaas noogu joogto macluumaadkii aan maanta soo qaatay ee cuntooyinka ku saabsanaa intii aan mar dambe kulmi doono. Nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullah.